maalmihii u dambeysay waxay dunidu hadal haysay baxsashatii ugu la yaabka badneed ee xabsi laga baxsado, weliba xabsi lagu tilmaamay kan ugu adag ee xabsiyada adduunka, heer la gaarsiiyo in lagu tilmaamay inuu yahay awoodda Israa'iil ay ku faanto, halka warbaahinta dunida ugu afka dheer qaar ay ku tilmaameen baxsashadan mid khiyaali ah oo kaliya lagu daawado aflaanta Bollywoodka iyo Hollywoodka, taasoo kaliftay in dhammaan ciidanka Israa'iil heegan buuxda la geliyo si loo baadi goobo raggan baxsaday. الفكرة بحد ذاتها هي فكرة درامية هوليوودية تصلح لسلسلة من سلاسل نتفليكس. في قصة أشبه برواية بوليسية ينجح 6 معتقلين فلسطينيين في الهرب من سجن جلبوع شمالي إسرائيل. فتحت جنح الظلام استطاع 6 أسرى فلسطينيون الفكاك من الأسر داخل السجن شديد الحراسة بطريقة تشبه روايات المغامرات التي ما زالت تحير قيادات أمن الاحتلال. maxaabiistan ayaa ka koobnaa 6 maxbuus oo reer Falastiin ah, kuwaasoo aan si la malaysan karin iyo agab fudud oo uusan aadanaha maankiisa ku soo dhici karin uga dusay xabsiga Shalbuuc ee waqooyiga Israa'iil ku yaala. Maxamed Caarida, Maxamuud Caarida, Yacquub Qaadiri, Ayham Kamanji, Zakariya Zubaydi, Manaal Faycaad, halyeeye aysan shacabka Falastiin marnaba aysan hilmaami doonin, iyo ciidanka Israa'iil kuwaasoo qasab kaga dhigay inay bilaabaan howlgallo lagu tilmaamay kuwo waali ah dhammaan dhulka ay gumaystaan si ay marlabaad gacanta ugu soo dhigaan raggan. Xabsiga Israa'iil ay ku tilmaami jireen inuu astaan u yahay awoodda amni ee Israa'iil ayay si fudud ku duleeliyeen, dibaddana u soo saareen fashilka nidaamka amni ee maamulka Israa'iil. Maxamuud Caarida oo lagu tilmaamay inuu yahay maskaxdii howlgalkan guuleystay iyo hogaamiyihii kooxdan, ma ahan markii ugu horeysay ee uu ka baxsado banaankana soo dhigo dulduleelada awoodda amni ee Israa'iil. 25 sano oo xabsi ah marna may bedelin go'aanka iyo adkaysiga Maxamuud ee ah inuu dib u helo xurriyadiisa uu hadda hantiyay isaga iyo 5tiisa saaxiib, isagoo gilgilay awoodda amni iyo heerka isku haleen ee lagu qabi karo sheegashada Israa'iil ee ah inay haystaan awoodda tiknoolaji iyo qalabka ugu casrisan ee xabsiyada dunida lagu ilaaliyo, kaasoo ilaa xilligan oo baxsashada raggan laga joogo dhowr maalin sheegi kari waayay godkii raggan ay ku baxsadeen, caradii ay ka soo saareen halka ay ku qariyeen, iyo xilliga ay qodeen godkan dhowrka mitir ah, iyo halkii ay uga timid qaandooyinkii yaryaraa ee ciidda ku soo saareen iyo ciidda banaanka ka hagaysay. Arinta kale ee la yaab kale ayaa ah in raggan godka ay ku baxsadeen ay ku beegeen mid ka mid ah darbiyada laga ilaaliyo xabsiga, kaasoo ku beegan albaabka, taasoo keentay in warbaahinta dunida ay ku jeesjeesaan sheegashada awoodda amni ee Israa'iil, iyadoo warbaahintaas aysan ku koobneen kuwa Carabta oo kaliya, balse ay ka mid yihiin kuwa Israa'iil ka soo baxa ee afka Cibriga wax ku tabiya. Qaandooyinka cuntada iyo hami aad u sareeya, qayb ka mid ah sabarka iyo ka go'naanta, alaab fudud aragtideeda kore balse leh awood qarsoon ayay raggan reer Falastiin astaan uga dhigeen sida ay uga go'an tahay inay dhulkooda xoreystaan. Sideese daawade ku aamini weyn kartaa iyadoo dhulkan uu yahay koodii hooyo iyo dhaxalkoodii awoowe.